السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحران فاتوش فاميلي سودا وهذا ولاشين فاتوش أنا كدعوة نسينو فاتوش فاميلي وأبديت كني ما أنتم حياة بدنا أيانا وخلي دونا وحن كهذا استملس عصب لصاص عري استملس كاس وليري وحدتك لقصينا تاكسيga la saari doono oil company so aniga in sharaxi doona waxa uu yahay stimulus check inshallah ayaa la soo propose gareeyay sidoo kale Biden oo dhahay waa in la raba inay joojiyaan ganacsiga trade-ka kala dhaxeeya Russia trade-kaas baan in sharaxi doona wuxuu yahay iyo bil cusub ay salma xala baas gareeyeen sanatarka soo dhawaada marka insha Allah aad baad u mahadsantihiin markasta igu xirantihiin channelka subscribe saar asxaabta la wadaaga aad baad ugu mahadsantihiin anigana inaan newska inii soo gudbiyo idinkuna ay daawateen insha Allah aad baad u mahadsantihiin share like subscribe ta hilmaamin si channelka uu kordho insha Allah السلام عليكم كسو دواده فاتوش فاميلي اونلاين ستور oo aad ka helaysid daahiye aad u qurux badan daahiyada designmadi ugu dambeeyay ayaad ka soo dalban kartaa hadii aad xiiseynaysid naga soo wac taleefanka shaashada ku qoran ama snapchat-kayga igu darso also waxaan hayaa go'yaashii sariiraha iyo miisaska qadada alaabta lagu sharaxayay oo aad kala duwana state kasta aad joogtina shipping waan sameeyaa hadii ilaahay idmo Biden ayaa wuxuu soo rabaa inuu la sameeyo in la cancelo trade-ka ka dhaxeeya Russia iyo America kaas trade-kaas waxa weeye wadan kasta I think last week ay Canada sameeyeen waxa ay kala saxiixdaan wadamada ganacsiga alaabaha wadankan soo galay iyo kuwa kan ka baxaya in si fudud ay u gudbaan in lacagta laga qaado la yareeyo in waxyaabaha xaniba kana ganacsiyada bataatanba la yareeyo oo meesha laga saaro higher important ismayn karaan yani inay alaab badan soo gelin karaan America marka waxay dhaheen waxa la rabaa in la cancel gareeyo alaabtii ka soo galeysay Russia yani trade-kii waa agreement la isla galo oo xagga ganacsiga ku saabsan soo alaab kasta wadankan soo gasha labada wadan baa saxiix kala sameeysta marka waa very waxa waaye dhabar jab weyn ay ku noqonaysaa Putin ama Russia wadanka because hadii la yiraahdo trade-kii dhan baaban in ka refogareynayno in ka cancelayna waa wax badan soo Biden wuxuu rabaa caawinta order markuu ku sameeyo waxa caawin uu ka rabaa sanadka house-ka inay soo waxayaan biilka soo waxayaan because ayaka awalba waxay trade-kaas laga soo waa inay ayagu soo sameeyaan oo ayagu soo baas gareeyaan si uu u saxiixo oo bataatan loo joojiyo ganacsiga ka dhaxeeyay America iyo Russia muxuu noqon karaa soo waxa laga yaabaa inuu ka soo gali jiray dahab ama diamond-ka waxa laga yaabaa inuu ka soo gali waa ka soo galaaba yani waa ganacsi kasta alaab badan baa ka imaata waxa uga imaata qamriga haduu rabo waxyaabo badan yani alaab badan baa la soo keenaa wax anything uu ka iman kara Russia wax badan wixii kasto ay ku ahaystaan oo rabaan America inay ka gadaan bay keeni jireen si fudud ayakoo la saareynin maxaa la jira lacag badan laga qaadaynin trade-ka yani wadan kasta kala saxeedaan soo wuxuu dhahay sidoo kale European EU-ga ayakuna way sameynayaan waxa sameynaya 7 other European country ayakuna nation way kala noqonayaan trade-ka ismeen jireen because ay taageen lacag iyo ganacsi badan dhex mari kara nin rabo inuu Ukraine qabsado oo baabi'iyo wadanka dariska ku ahaa marka arkayna bal ayakana markii house-ku ay soo waxayaan waxyaabihii ka imaan jiray markay ka imaan waayaan waxay noqonaysaa qaali way qaaliyoobayaan ama waxay raadsanayaan dadkii awalba ganacsiga ka keeni jiray wadamo kale ka keenayaan oo meelo kale u wareegayaan laakiin bataatanba waxba ma soo gelin karayaan sidoo kale sanadka ayaa wuxuu u baasgareeyay 1.5 trillion kii shalay uu soo baasgareeyay house-ku waxa la yiraahdaa waa wixii ugu dhaqsiyaha badnaa oo marah sanadka ugu dhaqsiyaha badnaa because waxa la yiraahdaa 24 hour gudahood ayay ku baas kareen maxay tahay lacagtaas waa lacagta spending-ka sanadka ilaa September waaye from now in joogno ilaa September lacagta dawladdu ku shaqeyn lahayd iyo 13.6 billion
oo lacagtii Russia ama Ukraine aidka Ukraine lagu caawinayo bay kamid ahayd marka waxa la yiri 24 hour gudahooda ay ku baasiyeen baasgareyntaas ay baasgareeyeen waxa la yiri sanatar badan ayaa cabtay oo ka xanaaqay because waxay dareemeen Democratic Republican base ku jira laakiin maxaa lagu baasgareeyaa 60% no more qayla qofkii qayli asaga u taala 60% waa boqolkiiba 60 haddii cod ku haysto uu dhaqaaqaya maxay u qeyneen waxay maan helinin xataa time ama waqti aan ku aqrino biilka wuxuu ka samaysnaa dawladda fundingkeeda lacagta Ukraine la siinayo aidka maba aan helinba intaasoo page waxaan ku aqrin si aan ku aqrino maan helinin sidoo kale sanadka dad qayb kamid ah ayaa waxay soo propose gareeyeen biilkaas oo ah dadka stimulus check siinaya stimulus checks xagee laga keenaya oilki iyo gaaski inay qaaliyoobeen cirka ku dhageen because wadan markuu dagaal ka dhaco oo alaabta yacni gaaski iyo ay ka imaan weysa kambaniyada ay ka imaan weysa ka keeni waayeen waxay taxi gareynayaan canshuur aan caadi ahayn ay saarayaan dadkii gudaha ku noolaa sida anaka camal oo kale oo gaaska isticmaalna oo oilka isticmaalna ayay saarayaan fahmaysaa soo marka waxa la soo propose gareeyay stimulus check laga qaadayo taxi baa waxa la saarayaa kambaniyada gaaska because waxa maadaama dadkii de lacagtooda ay qaadanaysiin aad ka faa'iideysanaysiin dhibaatada iyo dagaal ka dhacay anakuna idinka baa ina taxi gareynayna soo waxa la soo saaray shal Thursday bill oo White House kala keenay kaas oo sameynaya inuu ayaka taxi gareey lacagta ka soo qaado lacagtana dadka stimulus check ahaan ugu diro okay si loogu diraya soo waxa la lacagta waxay noqonaysaa saddexdii biloodba mar ayaa check la isku soo diraya okay waxa la fiirinayaa income-ka qofka single-ka kay 75000 iyo wixii ka yar dadka ah ayaa la sameeynaa qofkii single oo 75,000 ka yar sameeya iyo dadka isqaba oo 150,000 qofkii labada qof isqaba 150,000 iyo ka yar haddii ay sameeyaan lacagtaas kambaniyada lagu canshuur gareeyo oo lagu taxi gareeyo ayaa qof kasta check looga soo diraya waxa la yiraahdaa qofkii single-ka waxa siinaya $240 labada qof isqabtana waxa la siinaya married couple-kana $360 waa stimulus check cajiib Soomaa soo waxa la taagay idinkala dadka ka faa'iideysanaysiin annakuna taxiga ayaan ku badinaynaa maadaama lacagtii dadka ka soo dilaysiin lacagtana ayakaan u celinaynaa okay sidoo kale isteedyo badan ayaa waxay sameyn doonaan in ay maadaama gaaski aad iyo aad u kacay inay ka daayaan gaaska taxiga ay saari jireen because state-ku taxi buu leeyahay canshuur waaye federaalku canshuur bay saartaa inay ka qafiifiyaan si dadka ay iyakuna gaasku cirka ugu sii dhiginin okay gaaski waxa la yiraahdaa highest marka waxa laga baqayaa dadka baabuurta intay dhigtaan inay iska wada lugayaan dhaaya wadankeena Afrika waa lagu lugayn jiray samarka waa la lugayn karaa samarka is good samarka waa la lugayn karaa winterka waa waxaan lugayn karin samarka qofku lugayn karaa wuxuu sameyn karaa easy waxa qofku u noqonaysa public transportation inuu qaato waa hubaal dad badan inay gaariyaasha iska dhigayaan oo public transportation ay qaadan doonaan marka insha Allah aad bad u mahadsantiin asxaabta saa igu xirantiin newska iga dhageysatiin aniguna aan kugu soo gudbiyo ma sha Allah aad bad u mahadsantiin waxa naga follow gareyn kartaa TikTok waxa ka hor soo iga follow gareyn kartaa Snapchat-ka meel kasta igu soo darsaday newska meel kasta iska yaalaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته